si lamida wadaxaajoodiyadii dagaalka ka hor ee rajadu ahayd in looga baaqsado wixii dunidu goobjooga u noqotay 40 maalmood ee uu socday gulufka Iiraan. waxaa haatan caalamka oo dhami indhaha ku haya Islaamabad caasimadda u ah Pakistan, halka oo la rajaynayo inay ka bilowdaan wadahadalada Mareykanka iyo Iiraan ee markana la rajaynayo inay keenaan xal looga baaqsado in xiisadda bariga dhexe wajiyo colaadeed oo hor la yeelato, khatarteedu sii baahdo, xakamaheedana laga sii fogaado. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance oo hogaaminaya wafdiga docda Mareykanka ku metelaya wadaxaajoodka ayaa ka hor inta uu socdaalkiisa uu ku tagay Islaamabad bilaabin rajo ka muujiyay natiijada wadahadaladan laga filan karo. Vance wuxuu yiri, haddii Iiraaniyiintu diyaar u yihiin inay inoola xaajoodaan si didiilo leh, gacmo furan ayaanu docdeena ku qaabili doonaa. saraakiisha aqalka cad ayaa dhinaca kale rajo weyn ka muujinaya hogaaminta madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee ergada docdooda. mid ka mid ah saraakiishan ayaa Axios u sheegay in socdaalka JD ee Islaamabad ahmiyad khaas ah leeyahay. waxa uu la meel dhigay sida xiddig ka qayb galaya ciyaarta kama dambaysta ah ee horyaalka NFL-ka Mareykanka, finalka Super Bowl lagu magacaabo. tani waxa ay tusaysaa ahmiyadda khaaska ah ee marka natiijo wada hadalka laga helaa Washington u leedahay. xaaladu muuqata inay wadaxaajoodkan u arkaan fursad ay uga bixi karaan gulufka Iiraan sida khubaradu qabaan. dhinaca Iiraan oo waftigii ugu ballaaraa u dirsatay wadahadalka kaas oo uu hogaaminayo guddoonka baarlamaanka dalkaas, wasiirka arrimaha dibadda ku-xigeenkiisa, madaxa bangiga dhexe, hoggaanka golaha sare ee amniga qaranka Iiraan ilaa saraakiisha ugu mudan. dhinaca wadahadaladu waxa ay tustay in laf ahaantoodu danaynayaan inay natiijo meelgala ka hoyaan wadahadaladan fursadda dahabiga ah u ah xarbigii Iiraan ku jirtay 40 maalmood ee dagaalku socday, jaangooyn karta natiijada gulufkii lagu qaaday, fursadna siinaysa inay gole keenaan qodobada ay ku gorgortamayaan oo lagu waramayo inay yihiin kuwa aan Tehraan inay ka tanaasusho tashiga ugu jirin. marka laga yimaado natiijada la filan karo inay wadahadalada ka soo baxdo iyo nooca gorgortan ee cid walba la gole iman doonto, Iiraan waxay u muuqataa inay shuruudo adag ku xirtay in wadahadaladuba furmaan. sida uu shalay baahiyay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas Maxamed Ghalibaf, Iiraan waxa ay doonaysaa in laba shuruudood laga hormariyo furitaanka wadahadalada. haddii aysan taasi dhicinna ay adkaan doonto in wadaxaajoodkuba furmo. labada shuruudood oo sida Ghalibaf bartiisa Twitterka X ku qoray kala ah in Iiraan loo fasaxo hantida bunuugta dunida uga xaniman iyo in Israa'iil joojiso dagaalka ka dhanka Lubnaan oo ay maalmihii dhawaa boqolaal rayada ku xasuuqday. inkastoo Iiraan waftigii abid ugu ballaarnaa u dirtay wadahadalkan la sheegay inuu yahay kii abid ugu muhiimsanaa ee labadan dal yeeshaan tan iyo bilowgii kacaanka islaamiga ah ee Iiraan 1979, haddana Iiraan waxay u muuqataa inay ciyaarayso istiraatiijiyad naadir ah oo ah inay hubiso ka go'naanta Mareykanka ee dhaqangelinta natiijooyinka wadaxaajoodka, si taas loo gaarona ay cuslaynayso ahmiyadda isaragan. ugu dambeyn, mid kale oo warbaahintu wax ka qortay ayaa ah waftiga ballaaran ilaa 90 qof ku dhow u badan saraakiishii ugu mudnay dalkaas ee Iiraan u dirtay Islaamabad. marka laga yimaado inay Tehraan cuslaynayso ahmiyadda wadaxaajoodkan, haddana waxaa la warinayaa in madaxda Iiraan ee beegsiga Mareykanka iyo Israa'iil kala irdheeyay intii dagaalku socday ay doonayaan inay shirarkii beegsiga madaxda awgeed u baaqday ku yeeshaan caasimadda Pakistan, kuwa oo lagu go'aaminayo danaha istiraatiijiga ah ee maxalliga, qorshayaasha difaac iyo yoolasha mustaqbalka isugu jira.